السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay Dr. Nasra Gargaar waxaan ku takhasusay xanuunada ku dhaca dumarka daweentooda iyo qaliinadaba. waxaan ka howlgalaa Dalmar Specialist and Teaching Hospital. waxaan rabaa in aan wax ka iraahdo daryeelka iyo la socoshada loo sameeyo hooyada xilliga ay uurka leedahay kaas oo ah antenatal care-ka. caadiyan markay gabadhu uur yeelato waxaa loo sameeyaa oo muhiim ah antenatal care kaas oo ah daryeel loo fidinayo hooyo kasta ama gabar kasta oo uur leh safarkeeda dhalmada ilaa laga gaarayo ayadoo la fiirinayo maxaa la yiraahdaa xaaladda cunuga iyo ayadaba lana soconayo mar walbeetoodba. ujeedada loo sameynayna waxay tahay in la fiiriyo xaaladda hooyada iyo ilmahaba sidoo kaleentood in la fiiriyo waqtigii uu cunugan dhalmadiisa ay ku aadayso oo kaleentood sidoo kaleentoodna waqti hore in la ogaado haddii ay jiraan xaalado caafimaad oo u baahan in la daweeyo sidoo kaleentoodna la ogaado haddii qaab samaysanka ilmaha oo kaleentood ay wax ka qaldan yihiin. isbedelka caadiga ah ee ku imaada jirka ee normal physiological change ayuu ka mid yahay uurka. waxaa la socon karaan xaalado la xiriira markaas uurka imaaday. gabar kasta oo uur leh waxay u baahan tahay inay hesho la socosho joogto ah intay uurka leedahay antenatal care in loo fuliyo. Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadka.